waxa uu ku dhashay tuulo yar oo beeraley ah oo ku taal waddanka Japan. Qoyskiisu waxay ahaayeen faqiiriin ama danyar, dhammaantood waxay ku noolaayeen guri yar iyagoo haystay dhaqaale ama lacag aad u yar. Markii uu jiray 9 sano oo keliya, wuxuu iskaga haray oo iskaga tegay gebi ahaanba iskuulkii iyo waxbarashadii, wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo dukaan yar, halkaas uu uga raadinayay si uu u helo masruufka qoyskiisa. Waxaa caado u ahayd maalin kasta inuu kaco intaysan qorraxda soo bixin, nadiifiyo dukaanka yar, hagaajiyo howlo badan, kadibna uu xanaaneeyo carruurta cidda uu shaqaalaha u yahay, isagoo weliba carruur ah. Sanado badan kadib, nasiibku wuxuu tusay ama uu tijaabiyey waddo kale uu uga bixi karo nolosha uu ku jiray. Markaas wuxuu shaqo ka helay shirkad koronto. Aad ayuu u xiiseynayay nalalka iyo bareesooyinka isku xirxirkooda, wuxuuna samayn jiray habeen walba. Wuxuu bilaabay in uu iskii isku baro, tijaabiyana. Maalin maalmaha ka mid ah, uu sameeyay nooc aad u wanaagsan oo bareesada nalka la geliya ah, weliba casrina ah, waxaana sameeyay keligiis. Aad ayuu ugu farxay, uguna riyaaqay waxqabadkiisa, wuxuuna u soo bandhigay booskiisa ama madaxa shirkadda, laakiin maamulihiisa wax saamayn leh kuma yeelan. Wuxuuna ugu jawaabay in alaabtan oo kale aysan weligeed shaqaynayn ama aysan waxba soo kordhinayn. Inkastoo la diiday ama diidmo la siiyey, haddana wuu aaminsanaa fikirkiisa. Waxa uu rabay inuu sameeyo wax isaga xor u yahay, aasaasana shirkad. Wuxuu weydiiyey oo la socodsiiyey arrinkii saaxiibadiis. Waxay u sheegeen in uusan samayn karin, weliba in uusan iskaga tegin shaqadiisa joogtada ah, uuna isku dayin inuu aasaaso shirkadaas uusan u lahayn wax khibrad ah, uuna haysto lacag yar, aysan ahaaninna agtiisa wax aqoon ah. Waxaa loo dhiibay ama uu la kulmay niyad jab dhinac walba ah, balse maxaa ka dambayn doona? Marna kama aysan suulin aaminaada uu naftiisa iyo fikirkiisa ku qabay. Markii uu gaaray 22 sano, ayuu qaatay qaraar ama go'aan adag, wuxuuna iskaga tegay shaqadiisii daa'imka ahayd, wuxuuna aasaastay shirkad yar uu isagu leeyahay. Isaga iyo xaaskiisa waxay bilaabeen inay shirkadiisa yareed ka dhex furaan gurigoodii yaraa, ayna soo saaraan wax soo saarkoodii u horeeyay oo ahaa bareesado. Waxay bilaabeen inay suuq geeyaan, ayna ku suuq geeyaan shaqo aad u dhib badan. Door to door selling waa shaqo aad u dhib badan, aad ugu tegaysid qof walba goobtiisa shaqo iyo meesha uu ka shaqaynaya, aadna u bandhigaysid productigaaga. Laakiin qof walba oo dukaan leh oo alaabtiisii xiiseynayay ma aysan jirin. Wax dalab ah ama wax laga iibsadayna ma jirin. Bilo ayaa ka soo wareegtay, welina nasiib uma aysan helin inay badeecadoodii iibiyaan. Markaa noloshii ayaa ku adkaatay. Wuxuu iibiyey alaabta gurigiisa si uu u helo wax yar oo lacag ah si ay ugu sii noolaadaan. Maalmo badan ayuu ku fikirayay in uu isdhiibo, kuna noqdo shaqadiisii hore. Markuu albaab walba ka soo xirmay, laakiin subaxii markii cadceedu soo baxday, ayuu ka baxay wadooyinkii magaalada si uu u helo cid wax ka dalbata, si uu isku adkeeyo hal maalin uuna isku dhiibin. Laakiin waxaa yimi waqtigii uu wax walba ka quustay, uuna qarka u istaagay inuu ka tanaasulo riyadiisii. Laakiin Allah waa Ar-Rahmaanu Ar-Rahiim, waa mid naxariista, naxariis guud iyo naxariis gaar ahaaneed, una naxariista addoommadiisa muslim iyo gaalaba, gacantana u fidiya markay ugu liitaan. Naxariistii eebba xaggiisa ka ahaatay ciddii iimaan leh ayaa dareemaysa. Waa markay noloshiisii ay mucjisada isbeddelka wadata ku dhacday. Isaga aanan meelna haysanin ayuu helay dalabkiisii ugu horeeyay ee ahaa 100 xabo. Shirkadaas aan ka soo sheekaynay hadda waxaa ka soo wareegtay 104 sano. Dalabkoodii ugu horeeyay ee ka bilowday 100 xabo laga dalbaday shirkadaas, maanta waxaa u shaqo taga una xaadira 279,000 ka badan oo shaqaale ah. Iibkooda sanadlaha ahna waxay kor u dhaafaysaa 65 bilyan. Alaabaha shirkadaasna hadda waxaa loo iibgeeyaa dhammaan adduunka oo idil. Waxaasoo dhan waxa suurtageliyey, waxa sameeyey, waxa xaqiijiyey nin aan aqoon iyo lacagtoona haysanin. Waxa keliya uu lahaa uu haystay ayaa ah in uu naftiisa aaminay, magaciisuna waa Konosuke Matsuda. Gurigii yaraa shirkadii lagu aasaasay waa shirkadda la yiraahdo maanta Panasonic oo ka howlgasha adduunka oo idil. Guushu kuma xirna inta aqoontaadu tahay ama aqoontaadu la eg tahay iyo inta aad lacag haysato. Guushu waa inaad
inaad aamintid naftaada. Haddii aad rabtid in aad xaqiijiso guul, waxaa dushaada ah ayna tahay inaad aamintid naftaada marka hore, xitaa haddaysan cid kale dhinacaaga taagnayn, dhammaan dadka kalena ay iswada dhiibeen. Waxaan ka faa'iidayno qisadan ayaa ah in aadan ka quusan Allah marna, in dhabar adayg iyo aaminaada naftaada ay ku dhaxal siinayso guulo waaweyn, in haddii xitaa aqoon aadan lahayn aadan isku xirin xayndaab, laakiin aad u howlgasho waxaad jeclaan lahayd inaad samayso, iyo in dhalinyaradu ka faa'iidaystaan dhalinyarnimadooda. Waxaan idinka tegayaa fi amaanillah dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.